qaar ka mid ah xildhibaanada labada aqal baarlamaanka federaalka Soomaaliya iyo aqoon-yahanada Soomaaliyeed ayaa baaq u diray beelaha walaalaha ah ee dagaalka uu ku dhaxmaray degmada Wallaweyn ee gobolka Shabeellaha Hoose iyadoo ugu baaqay inay joojiyaan dagaalada. Senator Naciime Ibrahim Yuusuf oo ka tirsan golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa baaq u dirtay dowlad goboleedka Koonfur Galbeed iyo dowladda federaalka Soomaaliya inay markaasi joojiyaan dagaalada dadkaasi walaalaha ku dhaxmaraya degmada Wallaweyn. waxaan rabaa inaan baaq u jeediyo ummadda muslimiinta ee Soomaaliyeed ma aragtay meel walba joogo baaqaas nabadeed inay ma aragtay aan u jeediyo kuwa maamul goboleedka South West sidoo kale madaxweynaha iyo ma aragtay iyo maamulkiisa iyo qof walba oo damiir leh waxaan rabaa arintan arin ma aragtay oo ma ahan arin sahlan dhibaatada dhacday wax laga sabri kara ma ahan wax la dhigeysan kara ma ahan wax ma aragtay bini'aadanimada ku fiican ma ahan يعني dadka meesha lagu dhameeyana sax ma ahan raalina kama nihin bini'aadankuna haduu ma aragtay uu saas ku dhamaanayna hore loo dhamaan lahaa dadkan waxa way abti aysin meesha ku wada dhasheen deegaan waa anagana kama dhigin ilaahay baa u kasay. xildhibaan Daahir Amiin Jeeso oo ka tirsan golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa sheegay in dadka deriska ah isla markaana walaalaha ah aysan ku wanaagsaneen dirirta loona baahan yahay in la isku sabro. dhammaan muxuu ahay deegaankaas dhibaatada ka taal in xal waara loo helo waxaan diyaar u nahay aqoon-yahaniintayna siyaasiyiintayna inaan ka qayb qaadano sidii nabad waarta loogu heli lahaa dadka walaalaha ay u sii wada deganaan lahaayeen. horeyaan u sheegay deriskaaga adiga dooran maysid ilaah baa isku in dooray labada beelood oo isdilayso inay deris ahaadaan Allah ayaa u soo dooray. waxaa kale oo jirta nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu yiri kalaam fiican ku hadal hadii kale iska aamuso kuwa muxuu ahay baraha bulshada soo dhigaya muxuu ahay maalin walba dacayadaha iyo reer hebel ma degana meesha soo dhigaya wax unbay sii haleynayeen cid kasal guurin karto ma laha. qaar ka mid ah aqoon-yahanada ayaa shirkaasi jaraa'id uga hadlay in dagaalku uusan ahayn wax wanaagsan isla markaana loo baahan yahay sidii dadka walaalaha deegaanka wada degan ay isku caawin lahaayeen. waa dad walaalo ah hore u wada degnaayeen haddii wada degan yihiin waana wada degnaan doonaan cid laga sal guurin kara labada dhinacba ma jirto. waxaan ugu baaqayaa in si nabad ah oo ku dheehan bini'aadamnimo ku dheehan waxyaabaha ka dhacaya oo waxyaabo ka baxsan bini'aadamnimada oo waxyaabo ka baxsan shariicada islaamka oo waxyaabo ka baxsan qaanuunka caalamiga ah. sidaas darteed labada dhinacba waxaan u jeedayaa inay isxakameeyaan inay dagaalka joojiyaan in wada hadal la furo. dagaalkaasi oo ka dhacay degmada Wallaweyn ee gobolka Shabeellaha Hoose ayaa la sheegay in dad badan oo maati ay kuwii dirirayba ay qaarkood ku dhinteen halka kuwa kalena uu dhaawac ka soo gaaray. maxamed nuur maxamed shariifka warbaahinta qaranka muqdisho.